وليا هدعن جلو عذبا هاتشبو هاتشبي وليا هدعن جلو عذبا هاتشبو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلوا معنا وناكسد لكن بالضوضيات ميل كستون naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkii ka faa'iideysa xirfadaada oo idin la socodsiinayso anigoo ah Nuur Cabdiimaan. daawadayaal barnaamijku waa barnaamijkii ka faa'iideysa xirfadaada. daawasho wanaagsan idin leenahay daawadayaal meel kastoo ka daawanaysaan. magacaygu waa Cabsaaq Axmed Shaqalle. anigu waxaan leeyahay nin technician ah oo hawlo badan isku wada. horta hawlo badan ma qabtaa. sidoo kale niman fara badan oo isku jira baana. dhinac macallin baan ka ahay. dhinac waxaan ka ahay arday oo jaamacad imika digriga labaad wada. dhinac bahash farsamadan oo imika shaqadayda ayaan ka wada. marka saasay tahay shaqadaydu imika waxaan ka shaqeeyaa technician kan hawshan ayuu ku jira oo software iyo hardware bale. intaadin xirfadani ka shaqeynaysay in walaw aad noo sheegtay xirfado badan aad ka shaqeysay in ay ka mid tahay macallin haddii aan xirfadan soo daadin intaadin xirfadan technician ka shaqeysay sax waxaad fadhidaa meel laamaya maxaa kugu caqabad badnaa intaad ka shaqeynaysay xirfadani horta waxa jirta caqabad bilaadan kama dhamaato wax ku abuuran de sidaas darteed waxa dadyowga waxyaabo fara badan oo na soo maraa way jiraan laakiin se personal ahaan waan xalinaa wax naga yimaadana badan ma jiraan waana sideedaan u dhamaystiraa wixii noo yimaado waxaad jeceshahay inaad noqotid waxaad doonaysaa inaad kor ugu sii dilacdid xirfadani iyo xirfadaha kale aad ka shaqeysay maxaad jeclaan lahayd inaad noqotid mustaqbalka horta xirfadan waa xirfad qaali ah oo sidaynu aragnay maahana wax waa wax hayra oo dhifdhifade sidaas darteed waa kayn ka mid ah marka engineering oo electric engineering baa la dhahaa waxaan rabaa inaan noqdo mustaqbalka in ka gaaro horumar sidaas darteed aan sameeyno warshadahan lagu waarido Yurub ee Aasiya iyo Yurub inooga yimaado inaan halkan u bedelo isla markaana ku aasaasno telefoonno shaqeynaya oo aynu hawsha kor u sii wadno aynaan kana daalin baan ayaan rajaynaa insha Allah. Kuntii gabagabadii waxaa jira dhalinyaro caynkaaga oo kala iyo dad waaweynba xirfadoodana aan ka faa'iideysan laakiin dhalinyaradu badan ay jiraan qaar dalka uga tahiba sabab shaqo la'aaneed qaarna dalka isaga jooga sabab shaqo la'aaneed maxaa dhalinyaradaasi kula talinayo dhalinyarada waxaan soo jeedinay horta way jiraan oo dadku aad iyo jeer migration waxa la dhahaa ama taariikh uu nagu badan yahay dhalinyarta dalka way ka baxday boqolkiiba 50 meelaha way baxeen imika oo sanad walba way baxaan sidaas darteed waxaan kula talinayaa in ay dalkooda ay shaqo taalaay dalkooda aaminaan oo ay ka shaqeystaan sidaas darteed xirfadan oo kale imika wixii u baahan waan baraynaa waxaan u sameeynay iskuulaad imika bay qaar ka qalin jabiyeen qaar dhameysteen marka waxaan ku tali jiraa inaan dadka wixii baranayana iyagu qudhoodaan baro si voluntary iyo sida labadaba isku wadno wixii qayb ahaan qoladii aan awoodin voluntary waan wada karaa marka saasaan ku rajaynayaa insha Allah. odayaal waxaan ku guda jirnay barnaamijka ka faa'iideysa xirfadaada halkani aan ku suganahay waa suuq weyn magaalada Hargeysa waxaanu wareysi ka qaadi doonaa inaan ka shaqeysta xirfadiisa farsamo isagoo gacmaha kuna qoran magacyada kulba qof uu u baahan yahay walaalo adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo shaqadan aad qabatid. bismillaahir rahmaanir rahiim horta walaalo magacayga waxa la dhahaa Maxamed Saciid Bile shaqadan dhawaad aragtaa waxa weeye gacmaha taxnaa ruuxantii waa xirfad aad iyo aad u fiican qofkuna isaga shaqada abuuran kara waxaan ku raadaayay marka waa shaqo aan aad ugu faraxsanahay ruuxantii shaqo yaro walaalo muddo intee leeg baad hawshan ka shaqeynaysay intii aad ka shaqeynaysay maadaama oo aad degan tahay wada laamaya maxaa caqabada ay kula soo darsay caqabadu way badan yihiin horta waxaan ka shaqeynayay ilaa 3 bilood baan ku dhex jiray imika marka caqabadu way badan yihiin horta caqabada koowaad waa dawladda hoose kuma deynayso dabadna waan iskaga adkaysanaa iyadoo aan sidaa ugu adkaysanayno dawladda hoose iskaga sabrayno iyagoo naga daadinaya aan soo horanayno haddana alxamdulillah lacagaan bacadlayaasha soo saarin baan soo saarnaa ruuxantii haddaan kaaga sheekeeyo aanu $200 baan ku dhigtay $200 1 week baan soo saaray
saddexdaa bilood alxamdulilah lacag fiican baan ka haystaa walaalo hawshani aad qabanaysid iyadoo maadaama dhaqaale badani kaa soo gelayo ma ku qanacsan tahay mana ku faraxsan tahay inaad dalkaaga ku shaqaysatid dhididkaagana aad maashid ها الحمد لله ها إن سيوضو سي بلاريو أن سيوضو أن سي بلاريو أن إن أقدمتي ولا لا إن واحد شره دلنيرو كلام مدا dalkoodana aan ka shaqaysan balse dalalka caalamka uga taariibiyado dhibaato badani ay ka soo gaadho maxaad kula talin lahayd bulshada in dhalinyaradaasi in kuwa dalka fadhi ku dirirka meelaha u fadhiya iyo kuwa dalalka kale u tahriibaba waxaan kula talin lahaa horta qofku shaqada isaga abuurta qofku hadduu fikir waayo qof jiraba maaha kawdhe qofku isaga shaqada abuurta oo maxaan ku raadayay sameeysta haddaad iska tiraadid dalkaygii shaqo male waan tahriibaya oo naftaydii baan halista gelinayaa taas wallaahi wax arrin oo fiican maaha waxaan kula talin lahaa dhalinyarada ila midka inay shaqada abuurtaan waxaan ku raadayay dalkooda ku samraan dalka shaqo way taala maanta hadii aad dhagxaan ka dhigato laga haysanaya maanta ra'yi hadaad keentid aqli hadaad keentid aqligaaga wuu soconaya ilaahayna wuu ku barkeeyaa أتبي وليها هدعن جلو عدوها هتشبو أتبي وليها هدعن جلو عدوها هتشبو أتبي وليها هدعن جلو عدوها هتشبو